xaflad si weyn loo soo agaasimay soo abaabuleen jaaliyadda reer Hiiraan ee dalkani Kenya ayaa lagu taageeray wasiir ku-xigeenka howlaha guud guriyeynta dib u dhiska iyo dekedaha Soomaaliya injineer Nadiif Cusmaan iyo dowladeeda. xafladan oo lagu qabtay magaalada Nairobi waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu nagu manaystay diinta ka sokow dhul wanaagsan oo barwaaqo ah oo bad leh oo beero leh oo xoolo leh oo maxaa ku yiraahdaa ku yaala mowqic istiraatiijig ah oo muhiim ah oo caalamka oo dhan u baahan yahay. waxa uu leeyahay macdan iyo petrol ومع ذلك أيضا ساستها يا دناتو dadkeena meesha ay kala mareen waan arkaysaa qaxooti ay yihiin badaha ku dhamaanayaan. tan kale waxa waaye dawladda sharafta badan leh oo Soomaaliyeed oo aan taageersanahay waxaan ugu rajaynaynaa in howlaha hor taagan in Ilaahay boqorka u fududeeyo. waxaan leenahay ummadda midnimadeeda laga shaqeeyo Soomaali hala mideeyo yaan la kala takoorin hal isu keenan leeyahay xil gaar ah la iska saaro nafta loo horo. ugu dambeyntii waxa xafladda khudbad ka jeedisay wasiir Nadiifo. Hiiraan waa dhul barwaaqo ah waa dhul laba hubi maraan waa dhul beerihiisii aan xisaab lahayn waxaan hubaa Hiiraan haday isku tagaan maanta horumarkooda inay Soomaaliya inteeda kale ayaga ay wax gaarsiin karaan. Hiiraan waxay caan ku tahay madaxdii oo qiimaha lahayd oo Soomaaliya iyo taariikhda baal dahab ay kaga jirtaa. marka waxaan rajaynayaa inaan taariikhdaas iska burburinin aan noqonin kuwii burburka kaalin ka geysta. Ciise Xaji Abduul, Home Cable TV, Nairobi.